dadka danyarta ah ee ka soo laabtay xeryaha qaxootiga deegaanka Dadaab ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa maanta waxaa la gaarsiiyay deeq isugu jirta raashin qutul daruuri noocyadiisa kala duwan. Deeqdani ayaa waxaa dadka danyar ugu deeqday xarunta Bin Salman Sacuudiga iyo gargaar howlaha bini'aadanimada ah. waxaana soo gaarsiiyay ergeyga goboleedka ururka iskaashiga islaamka ee Soomaaliya OIC. deeqdan oo Soomaaliya dhan la gaarsiiyay ayaa Jubbaland ay qayb ka noqotay dadkii la gaarsiiyay. deeqdan ayaa waxaa nasiib u yeeshay 1250 qoys kuwaasi oo loogu talagalay in ay ku afuraan maadaama lagu guda jiro 10ka dambe ee bisha barakeysan ee Ramadaan. waxaana maanta laga qaybiyay xaafadda Madiina ee magaalada Kismaayo. qaar ka mid ah dadkii deeqdan oo la hadlay warbaahinta ayaa uga mahad celiyay dadkii soo dhiibtay deeqdani iyo kuwii soo gaarsiiyay. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. ma hadda waa mahad Ilaahay alxamdulillah rabbil caalamiin. waxa Ilaahay uga mahad celinayna boqol sanmaan raashinka waan qaadanay waana la siiyay Allah barakeeyo adduunka qarab dadka raashinka loo qaybiyaan kamid ahay waa alxamdulillah rabbil caalamiin. waan idin mahad celinayna maadaama aad ma aragtay raashin noo soo dhibteen sida awgeeda aakharna Allah idinku gargaar adduunka Allah idinku shaqo. waxaan u mahad celinaynaa inta deeqda maanta na soo gaarsiisay waan helnay ma sha Allah boqol salmaan iyo inta kale oo la socoto ma sha Allah deeqdana way na soo gaartay aad iyo aad wallahi farxadeena lama koobi karo ma sha Allah. haddii waan mahad celinaynaa dhamaantiin meel kasto aad joogtiin aad ku nooshiin deeqdiina way na soo gaartay maanta dawladda Sacuudiga boqor Salmaan adaanahay shacabka reer Kismaayo maamul goboleedka Jubbaland waxaan si aad iyo aad u wanaagsan aan u helnay risaalada in soo gaarsiiyeen iyo mucaawanadii si wanaagsan baan ku qaadanay. ilaahay baan ku mahadinaynaa. gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga degmada Kismaayo Cabdullaahi Maxamed Cabdi Gabow ayaa qayb ka ahaa mas'uuliyiintii ka qayb gashay deeqdii la gaarsiiyay dadka danyarta ah ee ku nool magaalada Kismaayo. waxa uuna uga mahad celiyay dadkii soo dhiibay. maanta oo ah maalin Arbaca 23 soon waxaa ka faa'iideystay deeq raashin oo ay soo direen hay-adan caalamiga ah OIC. hay-adaas ayaa waxay soo dirtay deeq afur ah loogu talagalay hal maalin. afurkaasna waa raashin ceyrin ah ma ah raashinkii karsanaa waa raashin ceyrin ah sidaad arkaysaan. aad ayaan u soo dhaweynaynaa dadka ka faa'iideysan waa dad Soomaaliyeed ee magaalada Kismaayo. deeqdani raashinka ah ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli lagu guda jiro 10ka dambe ee bisha Ramadaan oo ah 10ka ugu qeyrka badan. Nur Muxiidiin Cali Soyaal TV magaalada Kismaayo.